waxay idin soo gudbinayaa 8 qodob oo biyaha ragga laga helo eegna ka hesho haweeneyda xalaasha ah ama ninka inaagta sida xalaashaas ku qaba biyaha ragga fitamiinka ay wataan 1 biyaha ninka naagta waxay siiyaan fitamiino aad u badan oo keeni kara inay noqoto gabadha mid da'deeda aan laga dareemaynin waayo maqaarka ayay ilaaliyaan kana ilaaliyaan duqnimada haddii aysan jirin waxyaabo markaasi ku saleysan nolol maalmoodkooda 2 xagga hurdada haweeneyda la qabo mar waliba ay jirkeeda ku dhacaan biyo waxay ka qaadaysaa hurdo aad u macaan badan oo caafimaad leh 3 biyaha waxay ka ilaaliyaan ilma galeenka iyo gudaha xubnaha taranka ee dumarka jirooyin fara badan oo uu ka mid yahay cudurka loo yaqaan kansarka 4 sidoo kale biyaha minka haweenka waxay ku abuuraan dareen kacsiya waayo waxay kor u qaadaan hormoonada kiciya dareenka 5 biyaha ninka waxay naagta ka tagsiiyaan walwalka iyo fikirka marka ay jirkeeda ku dhacaan xubnaha taranka ayaa ka sii dhuuqa borotiinada ku jira isla markiina dhiigga ayay geliyaan 6 sidoo kale biyaha ragga waxay u wanaagsan yihiin xanuunka jirka sida madax xanuunka iyo dhabar xanuunka 7 sidoo kale biyaha ninka waxay siyaadiyaan difaaca jirka 8 sidoo kale caafimaadka wadnaha ayay u roon yihiin biyaha ragga haddaba digniin biyaha xalaasha ah ayaa laga hadlayaa kuwa xaaraanta ahna cudur in ay wataan ay u badan yihiin waayo waa wado nijaaso ah maxaa yeelay ilaahay wuxuu naga xaaraantinimeeyay dib ayay leeyihiin hana laga fogaado biyaha